بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم إلهي بقى مهضلة انت كدب وحانو مهد علينا لمان شعب كسوماليا دا ريجو بلان قارهان ريك اسمايو iyo dhamaan ciidamada amniga ee ku howlan ka shaqeynta iyo ilaalinta amniga dadka Soomaaliyeed ee reer Jubbaland ee Kismaayo ku sugan ee uu cadawgu maalmahan dambe isku dayay in uu in badan dhibaato gaarsiiyo kan hor istaago nolol maalmeedkooda iyo sidii ay u noolaan jireen iyagoo xor ah caafimaad qaba oo nabad ah waxaan u mahad celinayaa intii ka howlgashay dhamaan howlgallada hadda la sameeyay iyo kuwa la sameyn doono insha Allah waxaan rabaa inaan sheego waxa aan qabanay ilaa shalay ilaa xalay ilaa maanta aan ka shaqeynaynay muddana aan ka shaqeynaynay annaga shacabka oo iswadana in aan dhagar qabayaashii muddadii dambe hadda amni darrida u sababay magaalada Kismaayo aan ku soo dhigno gacanta si ay dadku ugu noqdaan noloshoodii iyo amnigoodii oo aad moodo maalmahan dambe in ay cadawgu saameyn badan ku yeesheen bulshada ku nool magaalada Kismaayo taas oo aad ka dheehan kartaan dilalkii faraha badnaa isku xigay ee dhacay iyo waxyaalihii badnaa ay sameeyeen ee handadaada ahaa ee dadka taleefanada loo soo diray ee qof walba oo meesha uu joogo loogu hanjabiyay loo tusayay in maxay ahayd sidii dadkii ay dilayeen oo kale ay u dilayaan waana fal oo waxa weeye argagixin ah oo ummadda lagu argagixinayo waxa Ilaahay mahadi ah dadaal dheer oo shacabkii iyo aan isla qaadnay annaga oo ciidamada amniga ah in aan ku guuleysanay in aan soo qabanno koox ka mid ah kooxihii dhibaatada badan ka geystay magaalada ee dadka laayay oo ay hormuud ka yihiin labada nin ee la kala yiraahdo Cusmaan Maxamed Maxamuud iyo Maxamed Cabdullaahi Abuukar oo aan gacanta ku hayno oo ah nimanka aad arki doontaan nimankaas oo ku ekeyn bas inay laynta dadka ee ka shaqeynayay inay magaalada soo galiyaan alaabta cadawgii intay ka soo qaadaan ay keenaan ay xaseeyaan ay cid walba oo loo geynayo qaraxyadaas iyo alaabahaas ay u geeyaan meesha ay la dhaho u geeyay ay u geynayeen waxaana lagu qabtay sida aad arki doontaan nimankaas biskooladihii ay wax ku dilayeen waxaa lagu qabtay bambooyin oo nooca gacanta ah waxaa lagu qabtay qaraxyo kale oo ay ugu tala galeen inay dhigaan meelaha ay bulshadu isugu timaado sida maqaaxiyaha xafiisyada qaar meelaha dadku ay isugu yimaadaan loona baahan yahay in laga feejignaado mar walba waxyaalaha oo yaab kale waxa ka mid ah in aan aragnay sida aragtaanba hadda idinka muuqata alaabta la soo qabtay in qaraxi lagu soo sameeyay darmuus taas oo ah wax nagu cusub oo hor leh marka qofkii qarax darmuus ku sameeyay wuxuu ku sameyn karaa waxyaalo badan oo kale taasna in dadku ay ka feejignaadaan la isku ogaado lagu tala galo in waxay doonaan ay qarax ku soo sameyn karaan laakiin hadii feejigni la sameeyo ay noqonayso maxay ahayd in laga hortago waxaan mar labaad iyo mar saddexaad u mahad celinayaa saraakiishii ku howlanay hawshaas oo gartay darmuuska la waday inuusan ahayn shaah ee uu ahaa in uu ahaa qarax lagu wado fahmay iyaga oo isticmaalay taatiigii ay u shaqeynayeen nidaamka ay ku shaqeynayeen waxaan rabaa inaan u sheego waxa maalmahan dambe ku soo badatay dadka magaalada Kismaayo in taleefano laga soo waco waxaan rabaa inaan u sheego dadka ganacsatada ah ee la soo wacayo iyo dadka dawladda u shaqeeya iyo dadka kale ee shacabka ee la cabsiinay intaba insha Allah in aysan nimankaas cadawga waxba ka qaadaynin hadii uu alla idmo aan u taaganahay habeen iyo maalinba inaan amniga ummadda xaqiijino aan wax looga hibaysanayna jirin wax loo fiirinayna aysan jirin waxaan rabaa marka in shacabka dhammaan noocyadiisa kala gedisan uu la shaqeeyo laamaha amniga
kala shaqeeyo waxa ay cadowgu maleegayaan loo soo sheego laamaha amniga lagala hadlo la yiraahdo waxaan aragnay waxana jira sidii hore loo sameyn jiray waxaad moodaa in habacsanaan ay jirto amniga cid gaar ah dan uma aha wada ogtiin maalmahan waxaad bilowdeen dadkii dhammaan in 12 saac galabnimo guryaha lagu xaroodo awalna xilliga la doona la socon jiray la caweyn jiray dhalinyartu ay salaxyada iska tagi jireen sportigooda iyo hawlahooda iyo xooda iska wateen waxaan u baahanahay in noloshu sideedii ku soo noqoto annaguna insha Allah waxaan xaqiijinaynaa oo u taaganahay oo rabnaa inaan idin ballan qaadno inaan insha Allah cadawga intii awood ah aan difaacno idinkana qabanno sida aan hadda u soo qabanay aan u qaban doono markay wax isku dayaan insha Allah mid walbana meesha uu joogo loogu tagi doono hadduu alla idmo waxaan rabaa marka ganacsatada inaan u sheego yaan la idin baadin yaan been la idin sheegin yaan la idin dhihin waan ku aragnaa yaan lagu dhihin maxay ahayd hadda lacagta bixin weyda sidii hebel baa lagu dilayaa waxaan sidoo kale leeyahay waxaad ogaataan qofku markuu maanta lacag cadowga Soomaaliyeed ee shabaabka uu siiyo in berina la dhahayo hadduu cabsi ku siiyay lacagta in berina la dhahayo waxaad sameynaysaa haddana shaqo cabsi ku qabo qof hebel cabsi nooga soo warbixi waxaasoo dhan aday saameyn kugu yeelanaysaa wado aan inagu furnaan jirin ha inagu furina ganacsatada ha inagu furina in la yiraahdo waxaan u xukun tagaynaa cadowgii ummadda baabiinayay oo waxaan tagaynaa goobahoodii oo u xukun tagaynaa way jiraan xogo aan hayno iyo dad waxa ka shaqeeyay sidooda iyo meelahooda loogu tagi doonaa laakiin waxaan u sheegaynaa in ay maxay ahayd ay joojiyaan waxa dadka wada waxaan u sheegaynaa dadka lacagaha iyo ku mashquulsan inay dadka u hanjabaan oo dhaan lacaga keena cadawga u shaqeynaya inay ka digtoonaadaan dibna uga istaagaan waxay ka shaqeynayaan waxaan u sheegaynaa ganacsatadu inay ku ekaadaan shaqadooda iyo ganacsigooda garab baan ugu nahay ninkii lala soo hadlo ama ganacsado ahaw ama ahaw qof caadi ah magaaladiisa jooga ama qof dawladda u shaqeeya waajibna saaran weey inaan ku ilaalino oo ilaahay nagala xisaabtamayo dawladdu nagala xisaabtamayso dalka iyo ummaddu nagala xisaabtamayaan kuma dayacayna laakiin na soo gaarsii fariinta waxa tiraahdaa waa la soo wacay saasa la yeelaya saasa la dhahay annaga naqaan waajibka saan u gudanayno iyo ilaaladaada iyo naftaada inaan sugno laakiin ha qarsanin ha isqarinin ha dhihin maxay ahayd cidna ima ogo aday dib kugu keenaysaa waxaan rabaa dadka walaaladaya Soomaaliyeed reer Kismaayo shacabka reer Jubbaland inaan u sheego in ay amniga iyagu ilaashadaan amniga dad adu ilaashan cidna kuma ilaalin karto amni markii la helo nolol baa la helayaa waxbarashadii baa okay noqonaysa socodkii baa okay noqonaya kii ganacsanaya iyo kii si kala u socdo waxa weeye meel amni ka jira la isugu yimaada oo laga dareemo nolol laakiin meel aan amni ka jirin lagama dareemo nolol waxaan rabaa oo kale inaan sheego dadkaas hadda la qabtay qaarkood waxay ka dhiganayeen cover in ay iska dhigaan dad oo masaakiin ah qaarkood oo adeegsanayay waxa la yiraahdo ganacsi yar iyo wax noocaas waxaan rabaa laba qodob inaan sheego number 1 dadka aaminsan dhaha qof walba oo gaari gacan alaab ku wata iyo wax ku wata waa shabaab ma aha shabaab qof walba laakiin qofkii shabaab ah ee cadow ah ama gaari gacan ha wato ama gaari ha wato ama wax kale ha watee halkiisa insha Allah ugu tagi doonaa kana qaban doonaa ummadana ka qaban doonaa waxaan u sheegayaa dadka dhamaan in dadka nada cadowga guriga laga kireeyay way kaligood deganaayeen way ku shaqaysanayeen qof walba qofka uu guri ka kireynayo ama uu maxay ahayd uu dejinayo gurigiisa inuu iska ogaado sababtoo isagu dib u keeni karaa bari isaga maxay ahayd yaa dib qofkii marka uu dibkii wixii lagu qabto ay dib ugu noqon kartaa qof walba wadooyinka sharciga ah la maro markii guryaha la dhisan ee la kireysanayo mar insha Allah
si amnigeena aan u xaqiiqsano adigana aan hadda wax dhib ah kugu soo noqdo oo jirin hadduu dhalinyar yahay hadduu oday yahay haddii haween yihiin qofka guriga ka kireysanay iska hubi nidaamka sharciga ee degsan ee u degsan systemka oo la yaqaano oo amniga soo hoosgalayo nootaayada soo hoosgalayso meel walba soo hoosgalayso mari qofka wax dhiba kaaga imaan maayo sababtoo adiga un baa ka faa'iidaya wax kugu soo noqonaya mal aad iyo aad u mahadsan